magac website laga saaray iyo warqad la qorayna ma bedeli karo himilada shacabka Somaliland. Soomaaliya waxaan uga diidaynaa in tallaabooyinka daciifka ah ay qaadayaan kaliya ay korinayaan cadaawad. Inaynu Somaliland ka midha dhalinaa inaga inagu xidhan tahay, inaynu awoodeenna xoojinaana inaga inagu xidhan tahay. warqad Muqdisho taala kuma xidhna kuwa hadda jooga iyo wixii maamul ka samaysmay xamar ilaa 1991 in ay qarannimadeena cadow ku ahaayeen, mana aha wax cusub waxa hadda dhacdhacaya. Dhiig iyo xinjiro cas ayay ku dul qotontaa. haddana haddii loo baahdo diyaar loola yahay in lagu ilaaliyo. shacbigan Somaliland waxa uu ku midaysan yahay inuu ilaashado himiladoodii ay ilaalinayeen 33 sannadood ee ugu dambeysay, waana sii wadayaan ilaalinta himiladaasi haddii ay qaadanayso 100 sano oo dambe. Somaliland waa himilo shacab. magac website laga saaray iyo warqad la qorayna ma bedeli karo himilada shacabka Somaliland. maanta waxaan halkan rabaa inaan ka diro 2 fariimood oo kooban. fariinta koowaad, Soomaaliya waxaan uga digaynaa in aanay xasarad ka abuurin gobolka. Soomaaliya waxaan uga diidaynaa in tallaabooyinka daciifka ah ay qaadayaan kaliya ay korinayaan cadaawad. Soomaaliya waxaan u sheegaynaa in wax kasta oo ay sameeyaan aanay dariiqa naga leexin doonin. waxa ceeb ah in la siyaasadeeyo dhaqaalaha iyo socdaalka dadka shacabka guulna laguma gaari doono. ninka maanta ku fakaraya 33 sano kadib in warqad la qoro lagu wiiqi karo wadajirka Somaliland iyo qarannimada Somaliland waa qof maangaab ah oo aan habeenna jirin. fariinteeda labaad waxa ay ku socotaa shacbiga reer Somaliland. walaalayaal, waxa ogtihiin kuwa hadda jooga iyo wixii maamul ka samaysmay xamar ilaa 1991 in ay qarannimadeena cadow ku ahaayeen, mana aha wax cusub waxa hadda dhacdhacaya. waxaynu cambaaraynaynaa siyaasadda fadhiidka ah ee dib u socodka ah ee ku dhisan xasadka iyo aragti gaabnida. walaal, cid ina ixtiraamaysaa ma jirto haddii aynaan lahayn awood ciidan oo adag. waana sababta siyaasadda xisbiga wadani ay ahmiyadda koowaad u siinayso dib u dhiska ciidankeena qaranka, qalabayntiisa, daryeelkiisa, casriyeyntiisa si uu u noqdo ciidan laga baqi karo. walaalayaal, difaaca qaranka waxa aasaas u ah midnimada gudaheena, waana sababta siyaasadda wadani ay saldhig ugu tahay isku haynta dalka iyo dadka iyo xoojinta wadajirka shacabka Somaliland. walaalayaal, waa inaynaan ku dhicin dabinada iyo qorshayaasha ay Soomaaliya rabto inay nagu kala qaybiso oo ay ka mid yihiin ka hadalka doorashooyinkeena. waxaan rabnaa inaan mucaarad iyo muxaafidba inaan u midowno qarannimadeena oo xoojino wadajirkeena iyo midnimadeennaba.